waxaan magaalada Kareema ee dalka Talyaaniga ku kulmay Dr. Abubakar Nuur Xuseen oo ah dhakhtar ku takhasusay xagga caruurta. Dr. marka hore soo dhawow Universal TV ee magaalada Rome. waa ku dhawahay aad iyo aad u mahadsan tahay Roberto. Dr. waxaan Soomaaliya waxa ka dhacay kufsi loo geystay caruurta yar maadaama adigu aad tahay dhakhtarka caruurta gabadha oo dhalinyar oo da'diyar oo la kufsaday maskaxan iyo jir ahaan maxay saameyn ku yeelan kartaa والله horti waxa waaye mawduuca oo kufsiga ama rape ama stupro ninba soo yaqaan afka Talyaaniga afka Ingiriiska waxa waa gardarrada ugu weyn oo loo geysan karo maaragtay dumarka gardarradan maaha mid ku eg kaliya jirka waa gardarro maaragtay maxay ahayd saamaysa maskaxdana ugu daran maadaama horti aniga dhowr joor aan ka hadlay kufsiga maaragtay gabdhaha loo geysanayo haddana maaha waxa bilowday waxay bilaabatay waagii sagaashameeyadii dagaalkii iyo waxaas maaragtay oo dagaalka ahliga ah oo Soomaaliya ka dhacay waxay aad ugu sii badatay maaragtay qoladan qaxootiga oo magaalada Xamar joogo oo taas ay ka mas'uul ahaayeen xataa maaragtay maxay ahayd dad meesha loo xil saaray in ay maaragtay masaakiintaas iyo dadkaas tabarta yar ee maaragtay maxay ahayd ee badbaadiyaan marka kufsiga waxa waaye sida aan sheegay waa gardarrada ugu culus oo dumarka loo geysan karo ama dumar gabar ha ahaato ama naag maaragtay 20 jir ha ahaato xataa waxa dhici kara maaragtay maxay ahayd in kufsigan in oo maaragtay saameeyo naagaha la qabo sababtoo ay tahay naagta waa in ay marka hore ayada raalli ka tahay in ay maaragtay ninka raali ka tahay inuu maaragtay ninka galmoodo haddii ay taas dhicin oo ninka maaragtay ku qasbo markaas waxay noqonaysaa gardarrada maaragtay oo dambiyeeda fal dambiyeed waa haddii aan ka bilaawno dhibka ugu weyn ee soo gaaray maxay ahayd oo ka yimaado kufsiga oo gabdhaha yaryar ee saamayso waxa horta gabadha yaryar Soomaalida waxay u badan tahay waa gabdha la guday maxay ahayd xubnahooda maaragtay maxay ahayd oo taranka ah saas uma bislaan marka dhibaatada soo gaaraysa horta waxa waa dilaac meesha ka dhalan karo dilaacdan waxa keenayo maaragtay maxay ahayd xoogga gabadha lagu qaabanayo gabadha labadeeda lagu kala jeedayo iyo galmada maaragtay xoog lagu isticmaalayo dhibaatada ugu horeysa waxa waa dhiig gabadha waxa waa hemorrhagia qaadaysa dhiig baxay dijama ee la kulmaysa taas kaliya kuma sidnee waxay galaysaa maaragtay in xubnaha gudaha in ay maaragtay dhaawac ka gaaraan maxaa imaan kara marka waxa imaan kara ama kan kuwa gabdhaha kufsanayo waxa dhici karo inay cudur badan qaadaan oo gabadha ay u gudbiyaan maalintaas ka dib maxay ahayd kufsiga oo yimid gabadha waxay la kulmaysaa wax la yiraahdo infection genital oo aan dhamaanayn sababtoo ay tahay lama yaqaan waxa maaragtay maxay ahayd bakteeriyada oo ka mas'uul ah ilaa marmarka qaarkood waxa la gaaraa xataa in gabadha ay noqoto maaragtay sterile ee dhali weyso taas waa badi waa laga kabsan karaa laakiin waxaan laga kabsan karin waxa waa kan maskaxda soo gaaray maskaxda gabadha hadday yar tahay oo kufsigan u yimaado la prima cause gabdhaha midda ugu horeyso ee gabadha la kulmayso waxa weeye cabsi habeenkii bay cabsanaysaa qof kasta aragtay ee ka cabsanaysaa xataa waxaa dhacayso maaragtay aabaheed iyo maaragtay wiilasha la dhasho dhan inay maaragtay ka argagaxdo gabadha waxay qaadaysaa wax la yiraahdo psychose riyadii iyo ayadoo maaragtay qarow bay ku soo kacaysaa daaweynta oo kufsigan oo maskaxda maaragtay dhibaatada soo gaarsiisana maaha mid maaragtay adiga bil lagu daaweey karo ama sanad lagu daaweey karo waxay qaadan kartaa xataa gabadha ilaa ay ka nooshaa in maskax ahaan dhaawaca soo gaaray oona weligiis daaweysmaynin marka maxaa dhacayo ugu horeynta waxa waaye gabadha nin kasta ee aragto way ka fiigsantahay uma dhawaanayso cabsi ee ka qabto marka cabsina maahe gabadhaas waxay dib u soo noqonaysaa waqtigii ama maalintaas la kufsaday marka waxa waa imagination waxay ka qaadaysaa phobia wax la yiraahdo oo gabadha maaragtay markastaba arkayso ayadoo maaragtay sidii film camal ee gadaal ugu soo noqonaysa taas waa tan ugu xun ama ugu maaragtay dhibaato badan mid kale waxa waaye oo haddii anaga aan Soomaali xataa ka hadalno
societadii bulshadii ameesha ku jirto bulshadii gabadha la xoogay culays saari mayso xaleeda gabadhan waa la xoogay macna ma laha faraha aan ka qaadno gabar yahay adiga maaragtay maxay ahayd bal is astur meelaha qaarkood ha aadin taas ayadoona bulshada tixgelinin ya gabadhan dhaawac soo gaaray ninka maaragtay guursaday ninka maaragtay kufsaday markaas ya waa xal Soomaaliya lagu dhameynaa waa nin gabadha markaas marmarka qaarkood gabadha waxay isleedahay waxaaba u roon maaragtay in ay isdishaan gabdha badanna way isdilaan marka waxaas ku dhacdo laakiin taas la fiiri maayo ma aha kaliya Soomaaliya haddii aad fiiriso xataa adduunkoo dhan ya maxay ahayd kufsiga oo gabadha lagu samaynayo waxa waaye ama kufsiga waxa waa la qarinaa ceeb waaye gabadha ma sheegi karto odagii habartii kulli waxa leeyahay naga aamus kufsigan hanugu sheegan hana ceebeynin haddii maaragtay cunug oo yimaado cunug waxa waaye wacal waaye wax marka gabadhii la fiirin maayo dhibaatada maaragtay soo gaartay maskaxiyan ama maaragtay jir ahaan laakiin waxaa la fiirinaa ceebta wixii ay maaragtay magaca familka u keeni karto magaca qoyska u keeni karto taasaa dadkan aga weyn kuwii maaragtay kufsaday ya waxa leeyahay ha soo dadka ma kufsan war macna malaha bal xal Soomaali aan ku dhameeyno wiilashii hal sii daayo tan ugu dambayso waa tii gaalkacay ka dhacday gabar yar maaha hal qofood ama laba qofood meesha waxa waa afar baa jirto afartaas hadii maxkamadii way qabatay aniga hadda ma aqaan xaalkii sida oo ku dhamaaday laakiin sida aan maqlay wali inay xiriyihiin iyo in la sii daayeen xal astureed ama lacag la dhiibay meeshan ma jirto wax maaragtay xal Soomaaliya lagu dhameeyay ama lacag la bixinayo dadkan dambiye galeen fal dambiyada lagu qaadaa ama ha ahaato xarig ama ha ahaato waxay noqoto taas waxa hadda hadii aan fiirno xataa ayaan dhaxas wadanka Talyaaniga baarlamaanka waxa ka dhacay dooda ka dhacday sababtoo ah doodaasna waxay ku timid maaragtay maxay ahayd reebkan ama stuubrahan oo qolooyin ay soo jeediyeen xataa maaragtay maxay ahayd eezaad dishamo kala kiimika in lagu sameeyo waay laakiin inkastoo aniga aan raali ka een waxa kiimikada lagu sameeyo laakiin arrimaha jirta primo tan ugu horeysa waxa waa education in maaragtay la galo dadka la education dadka maaragtay la wacyi geliyo information hatta maaragtay iskoolada la siiyo doctor yaa laga rabaa information dadka siiyo waxa waa la prima cosa waxay noqonaysaa in macallimiinta in waalidka maaragtay ayagaaba waalidkaaba ugu daran in maaragtay ayaga information la siiyo ee gartaan gabadhan dhibaatada xoogga soo gaartay inaysan ahayn maaragtay dhibaato jir kaliya ah laakiin ugu daran dhibaatada aqoonta maskaxiya taas waa sida maaragtay gabadhan loo maaragtay badbaadi lahay ama loo maaragtay maxay ahayd loo xanaanay lahay waa falankeeda in la qabto taas waa mid kale to meesha waxa waaye dawladda ayadana inay talaabo qaado waa sharciyo soo saarto oo qofkii qof kufsado maaragtay ciqaabta uu leeyahay ama ciqaabta lagu dishama la dul saaray waa in ay kala cadaysaa taas waa mid gabadhana waa in maaragtay dawladda ay u gargaartaa ama ay u furtaa maxay ahayd rug oo maaragtay gabadha maaragtay lagu daawi karo oo psychologo kuwan dadka maskaxda ah la hadlaaya taasna anaga waa aad iyo aad ugu baahana sababtoo ah waxaan orientation meesha maxaa la yiraahdaa orientationada oo toddoba degmo oo magaalada Muqdisho waa laga furi karaa gabdhaha meeshaas maaragtay lagu tarbiyeed karaa gabdhaha meeshaas maaragtay lagu wacyi gelin karaa ya taas waa mid kale to idinka information waa tan ugu muhiimsan oo dadka lagu caawin karo marka gabadha in la dhiirigeliyo ee hadasho dhibaatadeeda ee sheegato oo aysan ka xishoonin marka wax ayada ka timid maaha laakiin wax lagu qasbay ama wax maaragtay maxay dhibaato loo geysto waa aniga waxaan qabaa ilaahay yiraahdo maaragtay maxay ahayd wadan ahaan in aan anaga maaragtay gaarno heer aan waxaan ka doodi karno oo gabdhaha aan ku caawin karno oo aan u gara karno gabdhaha dhaawaca soo gaaray dhaawacaasna oo weligiis ku soconayo taasaan anaga aaminsanahay